بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حقيقتي مانتو maalintii labaad ee ciidul adha ciid carafada waxa marka koowaad ugu hambalyeynaya shacabka Soomaaliyeed meel kasto aad joogtiin ciid wanaagsan ilaahay inuu nooga dhigo mid barwaaqo leh guul leh horumar leh doorashadana si cadaalad ah oo hufnaan leh uu noogu dhameeyo sanadkan sanadkiisana aan anagoo caafimaad qabno ilaahayna kulansiiyo marka labaad waxaan rabaa halkan inaan mahad uga soo jeediyo mahadaasoo aad iyo aad u ballaaran guddigii dib u heshiisiinta arrimaha gado oo ugu horeeyo wasiir Caadle oo ku xigo wasiir Nuunow oo ku xigo wasiir Dhabancad oo ku sii xigo wasiir Aadan Qoryooley iyo la taliyaha xafiiska ra'iisul wasaaraha advisor Jama runtii shaqada aan idin idmaday maanta farxad ayay nagelinaysaa aniga iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed sababtoo ah si wanaagsan oo hufan oo wadaninimo ah oo walaalnimo ah oo saaxiibnimo ah oo ehelnimo ayaad u soo dhameyseen howlahaas oo dhan waxa ka muuqato warbixinadiina inay hawshii sidii Allah subhanahu wa ta'ala aan ka bariyayna ay noogu soo gabagabowdo runtii shacabka Soomaaliyeed waxaan halkan uga xaqiijinayaa in qodobkan ahaa arrimaha gado oo kamid ahaa qodobadii caqabadaha waaweyn ku ahaa heshiiskii 17 September maantay waxaan ummadda Soomaaliyeed horteeda ka qiranayaa in guddigan ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo wax la qabto waxa ugu wanaagsan qofkii ka shaqeeyo islaax bayna naas ay soo gabagabeeyeen oo maanta ay harsan tahay kaliya in aniga iyo madaxweyne Axmed Islaan Axmedoobe uu wareegto ku soo saaro maamulka degmada Garbaharey oo hadda warqadihiisa mar dhow liigu wareejin doono anigana aan madaxweynaha u gudbin doono inta kaliya ayaa u harsan inta ay soo jeediyeen guddigan oo ah tala bixintoodii ku aadineed arrimaha socdaalka amniga mashaariicda haddaan hal u kor istaago waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa har iyo habeen hortooda aan ka leeyahay socdaalka waa muhiim muwaadinka xaq ayuu u leeyahay inuu meel kasto ka safro meel kastana uu u safro dalka gudihiisa muwaadinka Soomaaliyeed musharaxa ah wuxuu xaq u leeyahay in la dhowro xuquuqdiisa muwaadinimo in la dhowro fikirkiisa in uu xaq u leeyahay magaaladu rabo inuu ka safro magaalo kalena uu tago waxaan farayaa hay'adaha socdaalka waxaan farayaa hay'adaha amniga booliiska iyo NISA warar badan baa soo gaaray dhowr jeer oo ah in dad la celiyay meelo kala duwan laga celiyay uma dulqaadan dooni qoftii ku soo baxdo falkaasna talaabo sharci ayaan ka qaadayaa qofka muwaadinka ah lagama celin karo airport haddii soo gaartana shacabka Soomaaliyeed anoo kaashanayo talaabo waafaqsan arintaas ayaan ka qaadayaa diyaaradaha socdaalka diyaaradna lagama celin karo ka baxayso Muqdisho Garbaharey tagayso diyaarad lagama celin karo Garbaharey ka baxayso Kismaayo tagayso iyo mid Kismaayo ka tagayso Garbaharey tagayso iyo mid Kismaayo ka soo baxayso xamar imaanayso dhammaan waa xaq dastuuri ah cid is hortaagi kartan walaan hay'adda duulimaadka waxaan u sheegayaa oo farayaa ciddii la timaado ama idin la hortimaado arrimo ku saabsan arrimahaas qalqal gelinayo si toos ah iigu sheega si talaabo cad aan uga qaado waxaan rabaa kale halkan inaan idin kaga sheego si howlahan guddiga dib u heshiisiinta arrimaha gado ay noo soo dhameystireen aan dabagal ugu sameeyno waxaan ka codsanayaa guddiga in ay kor joogteeyaan inay dabagal ku sameeyaan waxyaabihii ay noo soo qabteen anigana waxaan kala shaqeynayaa hawshaas sida hufan oo walaaltinimada leh oo saaxiibtinimada leh oo ehelnimada leh sidii ugu gudan lahaayeen oo ugu dhaqsiyaha badan amniga Garbaharey xaqiiqdii aniga waa ka horeeyay tiimka dib u heshiisiinta arrimaha gado ee wasiirada afarta dowlad goboleed ka socda waa soo arkay gado waa meel amnigeeda la isku haleyn karo waa meel ay joogaan dad wanaagsan oo saliim ah diyaarna u ah in doorasho lagu qabto meeshooda sidaa darteed waxaan kala shaqeyn doonaa
dowlad goboleedka Jubbaland oo madaxweynaha ka yahay Axmed Islaan Axmed Madoobe sidii amnigaas xilliga doorashada gacan weyn looga geysan lahaa haddii aan lahayd ciidamada amniga qaranka haddii aan lahayd ciidamada Amisom ee booliiska ah kulli way naga go'an tahay arintaasna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u fulinaynaa maantay waxaan halkan hortiina ka cadeynayaa shacabka Soomaaliyeed oo arintii gado waa noo soo gabagabowday alxamdulillah waxaan sugnaa waa magacaabidii iyo dhamaystirkii iyo dekreetadii anigii walaalkay Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland oo aan saxiixno waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo odayaasha dhaqanka wasiirada xildhibaanada senatorada dhammaan ka soo jeedo Jubbaland waa mahadsantihiin waa idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan oo wadaninimada ah oo aad noola shaqayseen aniga iyo guddiga dib u heshiisiinta arrimaha gado insha Allah waa guuleysanaynaa waa najaxaynaa doorashadana waa horteynay taala insha Allah si wada jir ayaan shacabka Soomaaliyeedna uga codsanayaa inaan si wada jir wax uga qabano mashaariicda ayay walaalahay ka dhawaajiyeen ku saabsan gado guud ahaan iyo Garbaharey ka ra'iisul wasaare ahaan xafiiskayga oo ah hay'adda fulinta ee dalka ugu sarreyso waxaan diyaar u ahay inaan wasiiradayda isbuucan oo sabtiga bilaabanayo aan faro inay tagaan waxna u qabtaan haddii aan leeyahay xaaladaha nolosha ee bini'aadanimada iyo xaaladaha horumarinta ee sida ay ka dhawaajiyeen warbixintiina ay ku lifaaqeen guddiga dib u heshiisiinta waana idinka aqbalay waadna mahadsantihiin waana idin soo dhaweynayaa insha Allah shacabka Soomaaliyeed maanta waxaan noo xirmay jabtarkii gado issue waxaan rabaa oo kale halkan inaan uga faa'iideysto oo aan shacabka Soomaaliyeed warbixin ka siiyo arrimaha Somaliland meel fiican ay ii marayaan wada tashiyo ayaan wadaa waa ku guda jiraa madasha wada tashiga qaranka ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe aniga ayay mas'uuliyadeeda isaartay sida ku cad September 17 February iyo 27 May anigoo la tashanayo gudoomiyaha Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku xigeen Mahdi wada hadal ayaan noo socdo qulubtiina khayr u sheega arinta saddexaad oo rabaa maanta inaan halkan kaga hadlo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa ducadiina waa na soo gaartay insha Allah saan hore idinku sheegay maanta waan ku celinayaa xildhibaan uma socdi senator uma socdi madaxweynenimo uma socdi sababtoo waa dartiin ayaan u tanaasulay haddaanan u tanaasulin doorasho xalaal oo cadaalad ah ma qabanay saa darteed waxaan rabaa inaan meel uga soo wada horjeysano qof kasta oo isku dayo inay caqabad ku noqoto ama shaki ay geliso howlaha wanaagsan ee shacabka Soomaaliyeed aan u wadno waxaan leeyahay siyaasiyiinta kubadda waxay jirtaa dowlad goboleedyadii magaalada inaad noo faaruqaysaan ayaan rajeynayaa gobolada aadaan doorashadii waa bilaabatay haddii aan lahayd aqalka hoose haddii aan lahayd aqalka sare iyo tii madaxweynaha October aan arki doono haddii Ilaahay caafimaad iyo cimri dheer na siiyo marka waxaan idin leeyahay gobolada hal aado hal shaqo tago yaa la isku mashquulin aad ayaad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh